السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegaystayaasha qaaliga meel kastoo ay joogaan waxaan idinku salaamanaa salaamta islaamka. barnaamijkayaga maanta waxaan ku soo qaadan doonaa qisooyin, waana qiso jacayl ah. qisadani waa qiso si dhaba u dhacday, waxaana la yidhaahdaa marla arag sideedii. qisadan marla arag sideedii waxay ku bilaabmaysaa waa sanadkii 1981. waa qiso dhaba oo dhacday oo jacayl ah. jilayaashu waxay kale yihiin axmed iyo gabadhoo marla arag magacaha sidata. axmed wuxuu ka mid ahaa macallimiintii wakhtigaasi ka dhigaysay dugsigii sare ee 26 juun ee hargeysa. sanadku waa 1981. axmed wakhtigii dugsiga la fasaxay waxa uu safar ku aaday amba uu ku tegay jabuuti, halkaasi oo ay qaraabadiisu iyo ehelkiisu deganaayeen. axmed muddo 2 bilooda markii uu ku qaatay fasciisii jabuuti ayuu wuxuu u soo jarmaaday si uu shaqadiisii dib ugu soo noqdo jamhuuriyaddii wakhtigaa la odhan jiray jamhuuriyaddii soomaaliya ee caasimadda labaadna ay ahayd hargeysa. waxa dhacday axmed waxa uu gaadhi amba bascumbuli baabuurta loo yaqaano uu ka soo raacay istaanka weyn ee la yidhaahdo brasrambo ee ku yaalla halbowlaha magaalada jabuuti. basku wuxuu ahaa basaskan yaryar, waa bascumbuligu way kala waaweynaayeen, waa kuwan yaryar ee kooban ee wakhtigii hore qaar loo yaqaanay caasiga ayaa la odhan jiray. kolkaa waa baabuur kooban buu ahaa, waxaanu qaadayey 11 qof iyo dirawalka. axmed markii uu u soo jarmaaday safarkiisaasi oo uu ugu soo jeedo kolkaa magaalada la yidhaahdo dameere joog oo ahayd xuduudda u dhaxaysa labada dowladood, waa jabuuti iyo dowladdii hore ee soomaaliya, iminkana ah xuduudka somalilan iyo soomaaliya. axmed markii uu gaadhiga ku jiray muu ogeyn inay la socoto marla arag oo ay gaadhigani ku jirto. waa gabadha hadhow toole ku noqon doonta masiibo geed saaran. jacaylka marka la kala qaybinayo, jacaylku waa 3 baa layidhi. mid waxay afafka qalaad ku yidhaahdaan emotion love, oo waa jacaylkan masiibada geedka saaranoo adoo aan ogeynuun ay dabayshu kugu soo qaadaso. midna waxaa la yidhaahdaa chemistry love, oo wuxuu noqonayaa chemistry lovena waa jacayl kiida la yaqaanay ee dhaqanka ahaa ee gabadha la dooni jiray ee kolkaa la raaci jiray dee hiddaha iyo dhaqanka ee waalidiinteed la raaci jiray, tafiirta ee la odhan jiray haweenka iyo geelaba waa la hidda raacaa. kaa waxaa la yidhaha chemistry lofo, kolkaa waa muuqaalkii dee tafiirtii ayaa iyaduna ah. ka kalena dee saddexaadna isaguna wuxuu noqonaya waa physically, waxa weeyaan love for the sake of allah, waa dar ilaahay waad u jeclaatid. kolkaa jacaylku waa 3daa: emotion love iyo chemistry love iyo
for the sake of allah dar ilaahayo aad wajalaad haddaba axmed waxaa ku dhacay jacaylkan emotion love waa jacaylkan dabayshu ay wadato waa jacaylka aan la ogeyn safarkiisu halku ku dhimaan doono waa jacayl aan la ogeyn destinationka amba halka uu ku dabiyaaqaysan doono waa jacayl aan la ogeyn inuu noqon doono dabayl iyo inuu noqon doono mid hirgala oo raandhiis noqda waxay soo socdaanba waxaa la soo gaadhay 2:00 duhurnimo magaalada yar ee la yidhaha dameer joog halkaasi oo immigrationku ku yaallo waa magaalo yaroo kooban wakhtigaasi oo kolkaa dukaano yaryar ay ku yaallaan iyo meelo nasasho ah oo lagu nasto inta immigrationka la furayo waxaa la furi jiray immigrationka jabuuti wakhtigaasi dadku ay u tallaabi jireen dhinaca kale oo halkaana ay baabuur ka sii raacayaan lawyacdada kolkaa imika ay somalilan tahay 4 galabnimo ayaa dadka kolkaa iyo baabuurta la sii dayn jiro xaggan jabuuti laga sii dayn jiray axmed markii uu baskii sidaa uga degay ayaa gabadh ka horreysay oo kolkaa waa malla arage oo ka hor daadegtay kolkuu dhulkaa sidaa u joogsaday ayaa xagga jihada waqooyi oo kolkaa shamaalka baddu ay ku soo qaaday cadar baraafuuna oo aad u udgoon oo aada moodaysid riixad ka imanaysa jannada axmed markuu isha sidaa ula sii raacay waxa uu arkay gabadh sii jeeda oo kolkaa timo dheer oo timihii ka soo degay ay u soo degeen barhka halkaa bawdiyaha oo ay dabayshu kolkaas sidaa u kala qaadayso gabadhu waxay xidhan tahay garan cad iyo surwaaladan kolkaa loo yaqaano noocan militarigu amba field forest berigii hore ay xidhan jirtay ee 2 jaabadoodee waaweyn kule dhinacyada ah laakiin gabadha dee sii jeedkeyga uunbuu arkayaaye ma arkayo soo jeedkeyga axmed isla markiiba waxaa ku dhacay jacaylkaasi dee masiibada geedka saarana ee ay dabayshu wadato maxaad ku bilowdaa buu yidhi ma iska waran baad tidhaahdaa buu yidhi ma magacaab oo talaa ku baahday axmed meel dheerba kamu doonine nin xagga fankana ku fiican buu ahaa kolkaa hees buu ku dhuftay si uu soo jeediyo dareenkeyga kol haddii ay iyadu u martay dareenka sanka oo baraafuuniskii dee ka soo gengemayay riixadda baddu ay ku soo qaaday isaguna waa inuu u maraa kolkaa dhegaha walow anigu dee aanan xagga codkaygu fiicnayn heesaan aanan ku wanaagsanayn laakiin wuxuu ku dhuftay hees kolkaa heesihii wakhtiyadaa la dhegaysanayay hore ahayd kolkaa waxoogaa baan kasii xasuustaa sida 2 raafiiqood kalgacayl israacshan raadceeyay aniguna nolol inaan ku waarno kolkay gabadhii sii jeeday ay codkaa dee ka dhacayaan waa cod aada u qurux badan oo aada u axmed cod wanaagsanaa ayay kolkaa dhinacaa ay soo jalleecday indhaha ku yaalla waxaad moodaa indhihii xural caynta waa midabka dee masciideedka ee weliba xigaa akhtar jabiska qurux ilaahay u dhameeyey axmed kolkay dhinaciisii soo eegtay ayuu haddana ku yidhi suuraddaada oo qura ma siisteen adduunyada hadday ii sinaateen gabadhii ayaa dhoola ka caddayn iyo khajilaad kolkaa ayaa
dhinac dayshoodkii dumarnimo. kolkaasay indhaha hoosu rogtay. kolkaasuu yidhi ma jannada de ayaad naga soo booqatay adoo kale malaha arligaba kuma une. halkaa waxaa ka bilaabmay kaftankii iyo sheekadoodii iyo kolkaa albaabkii baa u furmay. axmed amuurta kumababa dheeraan ee gabadha qudhadeediina waa lagu duulay. waxa weeyaan waa jacayl kolkaa da'jirsaday uun 30 daqiiqo. waxaan jacaylka leeyahay waa cajaayib. axmed muu weydiin gabadhani halkay ku socotaa safarka halkay, wuxuu isleeyihiin oo u sawirtay kolkaa mala awaalkiisii iyo dee waxaa la yidhaahdo imagination marla arag unbuu sawirto iyaduna hargeysa gol janno ku degi doonta oo dabadeetana oo halkaa ku meherin doono oo dabadeetana haddii rabbi la odhanayo uu dee uga tumi doono hoteeladii wakhtigaa laga tumayey ee la odhan jiray yaasir night club iyo maroodi jeex. balse jabku wuxuu ku joogaa halka uu noqonayo safarka ay ku dabayaaqaysan doonto jacaylkan geedka saarana. axmed iyo malla arag 4tii galabnimo waxay galeen immigrationka waxaanay u sii dhaafeen dhinacii kale ee kolkaasi lawyacaddo halkaasoo ay laga raaco baabuurtii wakhtigaasi u bixi jirtay hargeysa, boorama, burco, lughaya, berbera iyo in kaloo kasii shishaysaba. run ahaantii waxaa dhacday markay amuure halkaa maraso waxay raaceen gaadhi kolkaa niisaana oo la yidhaahdo wado dirawal aada u cajiiba oo cabdiboos la odhan jiray. waxay guudka sare uga baxeen goobta wakhtiyadaasi dhalinyarada ku caanka ahayd reer magaalinimada waxa weeyaan fadhiyo bagaalaha ayay kori jireen. kolkaasuu halkaa u soo saarayna malla arag laftideedii. malla arag waxay soo socdaanba oo kolkaa gaadhigu soo socdo togoshina lasoo dhaafay iyagoo ku beegan kastamka kolkaa saylac inay ku hakadaan halkaasi oo loo hoyan doono habeen. intii ay jidkaa yar ee kooban soo socdeen ayaa cabdiboos waxa uu kala bedelayay heesaha qaaciga ah ee qudhadoodaba aad moodid inuu safarkooga ka qayb qaadanayay. run ahaantii waxay saylac soo gaadheen isla kolkay tahay 4tii galabnimo oo rubcla. kolkaa waxaa jira hoteelo waaweyn oo kolkaa la seexdo oo hurdo ah oo kolkaa cadiir bannaanka la dhigo. waxay kireysteen 2 sariir oo kolkaa isku dhow oo sidaa isku garab yaalla. rakaabkii kale la socdayna ay iyaguna kireysteen. waxa dhacday habeennimadii ayaa waxaa curtay bahar roob la yidhaahdo. roobkii baa curtay kolkaasuu dee maasheeye dhulka. waa meel aan rabay roob ma igu helay. baabuurtii subaxii ayaa waxaa la yidhi lama baxayo oo kolkaa weyshii caddayd iyo gariyaad sida looga gudbaaba way adag tahay. waktigani waa waktigii kolkaa dhinacan geerisa la mari jiray xaggan gubanka. waa laga soo gudbay 78kii waktigii la mari jiray dhinacan xariirad ee halkaa qunujeed iyo boon iyo qunujeed iyo
boorama dariiqii halkaa baxayay dhinacani waa geerisa kolkaa ceelgaal ayaa laga leexdaa kolkay 4 cisho halkii joogeen intuu dhulku dee ladnaanayo ee uu engegayo baabuurtuna ay mari karaan Malla Arag iyo Axmed waxaa sii laba kacleeyey jacaylkoogii iyo ballamahoogii nolosha ay hiigsanayeen inay kolkaasi guri yeeleelaan masiibaduse meesha jirtaa waxay ahayd iyo nasiib darrada oo isuwani labadooduba midba ka kale ma weydiinayo destinationka amba safarka dhinaca loo socdo si kastaba ha ahaatee safarkii maalintii 5aad 9kii subaxnimo ayaa loo xidhiidhay waxaa kolkaa la boobay baabuurtii boos fiican ayuu u qabtay kolkaa ayuu u qabtay Axmed Malla Arag kolkaa Axmed kolkan macamuus abusaranda ah iyo go-shaalu kolkaa ayuu xidhan yahay waxaa dhacday gabadhan Malla Arag waxay ka timid kolkaa Liibiya oo uu aabaheed kolkaa qusul ka ahaa kolkaa ma aha gabadh weligeed raacdayba baabuur iyo safarkaa dheer ee kolkaa baabuurtaasi dee dusha bannaanee la odhan jiray sabaaxyada amba niisaanada amba siisawyada may ahayn waa gabadh waxay adduunyada ku talaafashaa un ay tahay amba ay ku safartaa waa markab iyo dayuurad wax yar kolkaa gariyaadkii la socday ayay kolkaa ayay madax wareertay kolkaasay dee matag iga hootay kolkaasuu Axmed dhinacaa uga booday kolkaasay shacabkii ku kaceen baabuur oo sooday adigu la socday sooday inanta waday caynkan calaa kulli xaal xabaaliyo ninkeed loo kala tego Axmed intuu sidii markabkii Titanic oo inantii kolkaa qoorta qabtay ayuu gaadhiga madaxeegii dhinacii ka riday gariyaadka dhinacan kalena gacanta ku soo qabtay kolkaa matagana biyo u sitay ayuu kolkaa u kaga maydhayaa gu'ii shaalka ayee u sitayna wuxuu uga dhigay kolkaa tuwaan Axmed intii la sii socday waxaa gabadha kaga baxay in dee maalgelin aad u fara badan laakiin mustaqbalka iyo wuxuu ulanayo ayaa ka weyn dhib kasta oo ka soo martaba waxaa la soo gaadhay kolkaa geerisa waa 8dii habeenimo geerisa kolkaa hoteelo yaryar oo laga cunteeyo ayaa ku yaalla dabadeeta waxaa dhacday gaadhiga dee gabadh waataynu hore u soo sheegno baabuurtan dee la qabsatay may ahayn kolkaa wuu soo xambaaray kolkaa sallaantii buu kaga soo sidii iyadoo dee ay sida booshka u sito ayuu kolkaa dhulkii ula dhaadhacay kolkaasuu soo cuntaysiiyey kolkaasuu haddana ku soo celiyey gaadhigii baa kolkaa baxay nasiib darrada uga weynay bartan ayay ka bilaabmaysaa waxaa dhacday marka dooxa farda lagu xidhi waxoogaa yar sidaa looga baxo ayay Malla Arag ku tidhi Axmed waxaan ku degayaa halkii aan ku degayey way dhowdahay kuwaasuu odhanaya halkeed ku degasay kuwaasay tidhi sida tilmaanta laygu soo siiyey dooxan farda lagu xidhi marka bacdo aynu 15 minid uu gaadhigu socdo halkaasaan ku tegayaaye ii ballami bay tidhi dirawalka Axmed waxay ku noqotay dhulgariir amuur aanu filayn bay ku noqotay
kolkaa taladii way ka baahday talow maad raacdaa buu yidhi ma la degtaa ku ballami cabdiboos kolkay bartii ballanku ahayd ay joogto waxaa hooyadeed iyo kolkaa hooyadeeda aabbaheed ay wakti hore kala tegeen iyo kolkaa oday dee adeerkeedoo hooyadeeda kolkaa qaba dee waalidin iyo carruur yaryaroo dee kolkaa halkaa ku suga soo wadaag dad badan baa halkaa jooga axmed kolkaa shandadihii ayuu dee kolkuu dhaadhicinayay ayuu kuwiisiina dhaadhiciyey shandadiisii usitayna wuu raaciyey dhaqanka soomaalidu dee nini iskama daba galo gabadh dambe islaameed inti aanu qabin haddana way ku yar adkaatay isagoo cagaha jiidaya ayuu la soo noqday isagoo cagaha jiidaya ayuu axmed la soo noqday shandadiisii gaadhigii dusha iskaga soo baxa booskiisiina ku noqay weli marla arag dhinaciisii bay soo eegaysaa gaadhigiina dhaqaaqisna wuu eegayaa kolkuu waxoogaa yar ay ka dhaqaaqeen ayaa siigo ayaa kolkaa ka soo gashay xagga dambe ee gaadhiga siigadaasi waxa uga soo dhabcay kurkii marla arag sheekadan qaybaheega dambe waxaynu ku qaadan doonaa barnaamijyada soo socda waa sheekadii marla arag zideeni waxaa soo jeedinayay khadar jaanfiir ciga halkaad kala socotaana waa website-ka yaga arabsiyo times.net amba youtube channelka yaga arabsiya times.net waa inoo ballan iyo qisooyinka dambe iyo marla arag halka ay ku daba yaaqaysato